maanta ayay noqotay markii ugu horeysay ee musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo kor u dhaafaya ilaa 30 musharax halkan ay iska diiwaan gelinayaan si ay ugu tartamaan ilaa 8 kursi oo kamid ah kuraasida aqalka sare ee baarlamaanka dowladda Hirshabelle ay u dooran doonaan xubnaha 8 ah ee halkan ka soo bixi doona. raage xasan cusmaan waxa uu ka mid yahay musharaxiinta halkan soo gaar waana musharaxii ugu horeeyay ee qaadashada shahaadada iyo buuxinta shuruucda kala duwan. waxa uu ka mid yahay musharaxiinta ugu cadcad ee kaalinta weyn ku yeelan doona dhinaca u tartamida aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabelle. mar uu la hadlay telefishinka dalsan ayaa waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay kalsoonina ay u tahay in uu ka mid noqdo musharaxiintan isla markaana rajo wanaagsan uu ka qabo in uu ku soo baxo mid kamid ah kuraasida uu u tartamaya ee dowlad goboleedka Hirshabelle ee dhinaca aqalka sare. magacayga raage xasan cusmaan raage xasan xoote insha Allah waxaan soo diiwaan geliyay maanta musharaxnimadeedii sanatarnimo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo oo insha Allah uu khayrkana waafajiyo marka aad aan ugu faraxsanahay ilaahayna waa suurta galiyay waana soo dhameystay waana soo qaad shahaadadeedii insha Allah faykuunu khayr. baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabelle xildhibaanadooda waxaan ka codsanayaa in ay igu taageeraan codkooda aad iyo aad ay u mahadsanyihiin. maalinta axadda ayaa la filayaa in la guda galo dhinaca doorashada ilaa iyo maalinta arbacada oo ay isku soo dhammaan doonto guud ahaan doorashada aqalka sare ee Hirshabelle. xasan sanad xasan laki raadiyaha iyo telefishinka dalsan